been sheegin ninkaas wuxuu ahaa dadka aan beenta aqoonin mataqaana streetka ah daacadda ah hambalka maskiinka waxa laga yaabaa waxaan loo sheegayo oo dhan oo dowladnimada xaggeeda ka imaanaysa asagu inuu run uga qaatay dhinacii dowladdana aysan run ka ahayn bismillahi raxmaan raxiim qadar marka hore waa ku salaamay adiga iyo raadiyo daljir iyo dhegeystayaasha kaleeto daljir ku xiran salaan kadib awalan ilaahay waa mahad iska leh alxamdulilah calaa hada nicam walaalow arrintaas runtii markay soo gaadhay dhacdadaasi isla xilligay dhacdayba way soo gaadhay kowdii bisha xilli habeennimo ah arrintaas runtii aad iyo aad baan uga xumaaday waana ka naxay waana dhacdo ugu bay noqotay arrintaasi run ahaantii sida hadda dadku maaragtay social mediaha ama uga falcelinayaan ama ay u arkaanna anigu si ka duwan baan u arkaa horta ninkaas anigu cabdiweli maxamed yuusuf baa la yidhaahdaa caynaanshana waa ku magac dheer yahay oo naanaystiisa weeye ninkaas waxaanuun anigu aan ku ogaa ma jirin hadda dhowr bilood ka hor baa igu dambaysay isagoo jooga muqdishobo markii ugu dambaysay la soo hadlay laakiin si guud waan uga warhayay inuu xataa garowe joogay oo muddada dambe garowe hadday joogana waa ka warhayay wax hadda dhibaato ah oo ninkaas oo xaalad maskaxiyan ah oo aan ku ogaa ma jirin laakiin dee siaynu ognahay bini aadanka xanuunka qofku waa iskaga soo boodi karaa ninkan intaana waan ka aqaanay nin runtii aqoon-yahana oo dadka degan oo aadka u degan oo afka gaaban ayuu ahaa taariikhdiisa haddaan wax yar aan dib kaaga noqdo kaaga xuso ninka la yidhahdo khadarow ama dadkaba aan u caddeeyo ninkaas waagii horeeto intuusan ka mid noqon siyaasadda puntland nin wuxuu iska ahaa ganacsado ah waxa weeye ganacsiyo badan buu soo maray markii u dambeeyey cusbitaalka weyn oo boosaaso buu wuxuu ka ahaan jiray xisaabiye dowladdii kabacdina jaamacadda waddanku ku dhammaystay jaamacaddiisa koowaad dibaddu wuxuu aaday masterba wuxuu aaday dibadda kambala markuu soo laabtay oo dalka ku soo laabtayna waxa uu la kowsaday dowladdii madaxweynihii hore ee cabdulle maxamed cali gaas dowladdaas ninkaa waxay u magacowday wasiiru ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha halkaasuu dhowr sano wuxuu ka ahaa wasiir ku-xigeen dadkii runtii ula soo shaqayn jiray oo ama la soo shaqeeyeyna aad iyo aad bay shaqadiisana u ammaanayeen asaga qof ahaanna u ammaanayeen isku shaandhayntii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeeyey ama sanadkii barkii ugu dambeeyey dowladdii cabdulle maxamed cali gaasna wasiiru dowlaha amniga ayaa laga dhigay sidaas horta ku dhambaysay dowladdaas uu wakhtigeeda kula dhammaystay ma garatay waa garta taariikhda markaa kasoo gudubto bal dhacdadan see u dhacday iyo waxa kalifay haddaad xog wareysatay dadkii bakaaga dhowaa ama xaalka xogtiisa helay wallahi horta ninkan waayadii dambe oo dhan wuxuu iska ahaa nin hadda xil suge ah inta hadda dowladdaas maaragtay siciid cabdullahi deni madaxweynaha ka yahay dad badan oo dowladdiisa ku jira ama ha noqdeen xildhibaano ama ha noqdeen wasiiro dad badanoo waxaa jira had iyo goor siifiyadiisa u geynaya madaxweynaha sida hadda warka aan markii hadda dhacdo dhacday aan kaga war helay oo waddankii markaan la xiriiray dadka kaaga dhowdhow aan kaga war helayna waxaa la yidhi hadda wuxuu sugayey in dowladdaas isku shaadhaynta hadda dhacday iyo xilalka hadda socda iyo ayuu quuldaraynayey mar walba dadka wuxuu odhanayay madaxweynaha informationkayga iyo xogteyda iyo waxayga waa loo geeyey waa lala wadaagay dadkaas ninkaas caafimaadkiisa marna kama shekin muxuu ahaa mar walbana waxa uu rajaca uu qabay in maaragtay xilkiisa xil looga magacaabo waxyaabaha hadda dhacay dee waa wax iska horta imtixaan ah oo qadar ah ninkaas hadda naftiisa inuu halis geliyo ama naftiisa uu dilo hadda uu sababayna kolley horta markii si saxa aynu u abaarno qof haddeer mataqaanaa aan isleenahay maskax haddeer caafimaad qabtaa dee sidaas qof naftiisa ma dili karo marka waxaan isleeyahay qofka bini aadanka ahi khadarow haddii wakhti dheerna uu baagamuddo noqdo
muxuu ahaa ninkan saa maqlay deymo badan baa laga yeeshay Garowe hodheelo badan iyo guryo badan iyo maqaaxiyo cuntada dawladda sugitaanka uu sugayay in xil loo magacaabo runtii deyn badan iyo kharaj badan buu ku galay qofka marka maskaxda bini aadankana anytime bay qofka isbedeli ka dhacayo hadda waddamada horumaray aan joogno waxaa arkaysa qof wax yar intuu isla hadlay laleeyahay derbi wuxuu iska soo tuuray guri wuxuu isu dhigay gaari buu isu dhigay tareen buu isu dhigay horta simbal weeye oo dadka hadda baraha bulshada horta siyaabaha khaldan wax uga falcelinaya horta marka koowaad waxaan ayaga ugu baaqaya ilaahay uu toobad keenaan ilaahayna waa arrintaas uga baqaan waana wax dhici kara oo qof walba ku dhici kara maarata wax asaga ku dhacay ninkan haddeer maskaxiyan inuusan u caafimaad qabin kulligeen haddeer waa wada aragnaa oo waxayn dayin tusaysa muxuu ahaa qofkan inuu isla hadlay oo debreshar inuu ku dhacay waa aragnaa laakiin in laga falceliyo oo lagu farxo ama lagu dacaayadeeyo xil buu isu dilay arrintaasi sax maaha oo qofka sidaa ku dacaayadeynaya laftigiisa maskaxdiisa inay dhaqaaqdo oo isbeddesho ilaahay waxba kuma aha ma garat qofkii dhibkii waa dhacay si kastaba ha u dhaco qofkuna maaragtay inuu isla sheekaysto oo isla hadlo oo normally de naftiisaba uu dhib geysto sax maaha diiniyan iyo caqliyanba laakiin waxaynu qiyaasaynaa markay si wax u dhicin aragno ninkaan inuu mataqaanaa mindi isgeshay ama maqas isgeshay ama naftiisa inuu dilo khatar u bareeray wax wanaagsanna maaha wax haddeer mataqaanaa xil dartiis laysugu dili karana maaha oo horta ninkaani xanuunkaani waa wax hadda ku dhashay haddiiba hadda uu jiro wax hadda ku dhashay wey laakiin wuxuu horay u qabay ama horay mataqaana u qabay maaha waayo intaas oo xilal uu soo hayay ama waddanka ku noolaa ama uu soo shaqeeyey ama dadkii xataa yaqaanay waxay ku arkeen ma ahayn laakiin waa wax hadda aan isleenahay wax hadda ku dhashay oo ku soo booday weeyaho xanuunkana walaal waa soo boodi karaa qofku waa ku dhici karaa ma garat maxaa hadda idinku markaa yeesheen helada haddaad tihiin xaaladiisa caafimaad hadda waa sidee dowladdu see uga falcelisay arrinta walahi horta khadarow annaga dee waxaan kaloo koowaad horta aan qaban karnay nin si degdega ninka caafimaad daryeel caafimaad loogu sameeyo runtiina daryeel hadda nabarka ninka gaaray runtii nabar aad u weyn weeye sida hadda mataqaanaa informationada iyo dokumentiyada iyo xogta aan helayo cusbitaalka Garowe ku yaalla baa la geeyey maaragtay runtii way la dadaaleen dhakhaatiir ajnabiya baa runtii waqti badan geliyey laakiin de Soomaaliya aad ogtahay dhakhtaradoodu hooseeyaan oo aynu dareemi karno iyo nin maaragtay surkii nabar weyn kaga yaallo oo la leeyahay mataqaanaa dhuuntii baaba kalabar ay go'an tahay daryeelka horta uu dalka ka heli karo way yar tahay laakiin hadda caafimaadkiisu waa hadlaya muxuu ahaa khataradu intay qaban kareen dadaal caafimaad oo daryeel caafimaad way sameeyeen annaga iyo eheladii iyo dadkiiba macnaha waa u samaynay dhinacaas waa dhinacaas laakiin ninkaani wuxuu u baahan yahay khadarow daryeel caafimaad intaa ka badan dowrkii dowladda Puntland ayaa meeshaas ka maqan dowladda Puntland arrintaas mas'uuliyad bay ku leedahay mas'uuliyadda ku leedahayna waxa weeye ninkan wuxuu soo shaqeeyey qaranka wuxuu soo shaqeeyey dowladnimada wuxuu maaragtay haddeer naftiisa xataa haliska u gashay isula sheekaystay waa quuldarro uu quuldarraynayo dowladnimadii iyo mataqaanaa arrintaas iyo ballanqaadyada faraha badan oo maarata hadba uu ka helayo xafiiska madaxweynaha uu ka helayo haddii dhibkii dhacday dhibkan waa dhacay si kastaa ku dhaco kole ninkii maanta waa nool yahay dowladda sida hadda igu maqaalo ahi markii cusbitaalka uu joogana waxay dhaheen dadkii ehelada hayay waxaa noo yimi CID oo waxay yidhahdeen ninkan wax ka qoraynaa waxay yidhahdeen dee nin xanuunsan oo caafimaadkiisa la badbaadinayo waxba lagama qoree bal horta ninkani ha fiicnaado mamaagu si uu noqdo dhinacuun ku biiro ayaynu ka wada hadlaynaa arrintaasu arrin saxa maaha in qof la badbaadinayo caafimaadkiisa in la yidhaahdo waxbaa laga qorayaa waa la waraysanayaa taan horta arrin saxa ma ahayn waa sida riboodka uu soo gaaray haddii haddeer guriga loo wareejiyey cusbitaalka shalay uu ka baxay oo guriga loo wareejiyena wax haddeer dowladda ka socda oo guriga ku booqday oo gaaray oo aan maqlay ma jiraan hadda waxay ii sheegayeen wiilasha gacanta ku haya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maxamed baari xogayihiisa iyo istaafkiisa ayaa noo yimi baa yidhi xalayna soo booqday
inta hadda waxaan ka ahayn oo dowladda ka soo gaaray ma jiraan. anigu waan la xiriiray maaragtay dowladda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba qoraallaan u diray waana wacay ilaa haddan wax jawaaba kama helin. marka dowladda puntland horta waxaa looga baahan yahay oo mas-uuliyadda saaran ay tahay nimankani dalku u soo shaqeeyey, nin wax u soo bartay, dhallinyaro caafimaad qaba, dalka wax u soo bartay weeye. dhibkaani waa dhacay. dhibka dhacay marka waxa dowladda aan ka rabnay ehel ahaan aan uga rabnay horta kow dhakhtar horta caafimaada buu ninka u baahan yahay dibadda ah oo dalka ninka hadda mataqaanaa haddeer dhigjoojinba waxa loo sameeye weeye. oo waxaan ka rabnaa in horta ninkii dhakhtar dibadda ninkii loo qaado oo caafimaad degdeg, waayo hun guriga khadarow meel halisa weeye oo khatar ah. in dhakhtar dalka dibaddiisa loo qaado oo xaaladiisa caafimaad maskaxiyan iyo jismiyan labadaba horta loo soo baaro oo mataqaanaa ayaan uga baahannahay. waxaan kaloo uga baahannahay kharashka la leeyahay wuxuu ku galay mataqaanaa garowe oo hadda dadka qaarkood ay leeyihiin isla sheekaysiga oo kharajaadka iyo culayska faraha badan uu qaadi kari waayey awgiis ba hadda maskaxda u dhaqaaqday la leeyahayna dowladdu waa inay bixisaa. dowladda puntland khadarow waa in loo sinnaadaa dadka ninkaas nin maskiina oo runtii intaanu ka aqaan hambala buu ahaa. nin runtii dadka maaragtay qaar waxaa jira muxuu ahaa qaar waxaa jira isdabamarinta iyo beenta iyo waxaas aysan dhibin iyo qaar iyo qof weligii aan been loo sheegin asan been sheegin. ninkaas wuxuu ahaa dadka aan beenta aqoonin mataqaana streetka ah, daacadda ah, hambalka, maskiinka. waxaa laga yaabaa waxaan loo sheegayo oo dhan oo dowladnimada xaggeeda ka imaanaysa asagu inuu run uga qaatay, dhinacii dowladdana aysan run ka ahayn. marka waxaa la rabaa ninkaas hadda waxaan uga baahannahay oo miidiya inaan u soo mariyo igu kalifay 3 beri haddeer buu ninkii dhaawacaa yahay. 3 berina wax dowladdii puntland ka socda oo xil maaragtay mas-uuliyad puntland magaceeda ku hadli kara oo ninkaa booqday ma jiro, garowuna joogaa. marka waxaan aniga aadka aan uga xumaaday waxay tahay inaan hadda loo sinnayn dowladnimada meeshaa ka jidha, in dowladnimadii dad gaara ay ku danaysanayaan, in maaragtay dad gaara taqaanaa lagu naas nuujinayo. ninkaas maadaama amni ka shaqayn jiray khadarow, amnigu waa wax gaara waad og tahay oo amnigu wuxuu u baahan yahay mas'uuliyad gaara. qofku markuu amni ka shaqeeyo waxyaabo badan baa xataa asaga nafsiyan xataa ku imaan kara, cabsi baa geli kadha, waxyaabo badan baa mataqaanaa ku imaan kara. ninkaasaan ka war helay ka war hayey muxuu ahaa ciidan staffa ma wadan, muxuu ahaa dhaqaale uu haystay markii ma jirin, gaari ma wadan, iska lugayaba. marka waxaa laga yaabaa qofku xataa cabsida uu amnigiisa u baqaayo oo isleeyahay goorme wax kugu dhici kara. dalkii waad ogtahay amdara ka jidha